wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Soomaaliland iyo wafdi ballaaran oo ay horkacayso oo maalmihii la soo dhaafay kormeero kala duwan ku marayay goobaha kala duwan ee diiwaangelintu ka socoto ee gobolka Awdal ayaa maanta waxay wasiirka iyo wafdiga horkacayso socdaal ku gaadheen goobta diiwaangelinta ee deegaanka Cunaqabad ee galbeedka magaalada Boorama waxayna wasiirka oo la hadashay shacabkii isdiiwaangelinayay bulshada ugu baaqday in waqtiga kooban ee hadhay ay ka faa'iideystaan hawshii baritum bay nagu hadhay hadaan wax isbedelin baritum bay nagu hadhay waxaynu joognaa gabagabadeedii marka waxaan idinka codsanayaa inaad 48 saacadood ee dhiman mise 27 saacadood baa dhiman si adag aad u shaqaysaan hadii Ilaahay idmo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha goobtan oo si habsamiya hawsha u wada waxaan kale oo dadka kula dardaarmayaa intii aan qaadanay ilaa bari in la keeno hadii Ilaahay idmo oo aad wacyi gelisaan oo u sheegtaan aad baan u wada mahadsantihiin aad baan waxaan ugu mahadnaqayaa qabanqaabiyeyaasha diiwaangelinta dadka kaararka qaadanaya dadka soo urunaya ka hawlgalayo hawl adag ku dhacday runtii waxaana tihiin garbahaygii hadaanan idinku aydaan joogin waxa maan qaban kareen keligay aad baad u mahadsantihiin waan idin mahadnaqayaa jazaakallahu khayr sidoo kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii kala duwanaa aqoon-yahankii iyo eegas wasiir Faarax Cilmi Geedoole shaqadu meesha aad bay uga socotaa baabuur fara badan baa dadka lagu soo guraya dhulku waa dhul booraleeya inamada ka shaqeynaya teamka ka shaqeynaya oo Maxamuud ka madax yahay Maxamuud Noor aad iyo aad bay u mahadsan yihiin si fiican bay shaqada u wadaan wayna u sahlayaan dadka sidii moogtahay ay u gudan lahaayeen xuquuqda ay waajibka u leeyihiin ama xuquuqda ay leeyihiin inamada aad baan ugu mahadnaqaynaa dadweynahana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyagoo ka yimiday xoolahoogii iyo baylahahoogii inay halkan yimaadaan si ay diiwaangelinta ay u qaataan oo hadhow doorashada insha Allah ay uga qayb galaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiirka maalgashiga oo maalintay bilaabantay diiwaangelintu ilaa maanta oo maalin ka hadhay aan cagta naga qaadin oo nala ag joogto hiiliyahooba aad baan ugu mahadcelinayaa madaxa goobtana aad baan ugu mahadcelinayaa waa Cunaqabad meesha aan joogno dadweynahana mid baan ka dardaarayaa warqadda aad qaadateen hadhow tolo waxaad ku qaadanaysaan kaarashiina ayaad ku qaadanaysaan warqadaasi inay adkaysta iyo inay niga lumin wasiirku wuxuu nagu boorinayay in aanu hawshani dardar gelino saacadatu wasiir hawsha waan qabanay waxaana ka ballan qaadaynaa labada cisho soo socota inta dhimanna inaan goobtan keenno oo isdiiwaan geliyaan dadka isdiiwaan gelinayana waxaan leenahay ha ilaawina goobta aad ku qoranaysaan runtii ma aanan arag wasiirsan oo la shaqeeya ma aanan arag aad baan ugu ducaynaynaa jazaakallahu khayr baan leenahay intii nala shaqeysayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo cidii kale isdiiwaan gelinaysa nacaawisay waxaanan bal insha Allah labada maalmo si dadkii ugu horeeyay ay sheegeen wasiirku horeeyay waxaan ballan qaadinaa insha Allah inaan goobtana dhameystirno wixii ka qabiya Boorama dhexdeedana aanu ka sii hawlgalo labada maalmo aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka maalgashiga oo intii ay diiwaangelintu bilaabantay hawshan si hagarla'ay hawshan halkan uga wada gobolka aad baan ugu mahadnaqanaa qolooyinkaygii qabaqaabiyaasheediina wasiir saaman u taagan oo wadiga arkaya jazaakallahu qolada komishiga oo wadiga arkaya oo shaqeynayaan hawluhu si kasta way u socdaan wasiirkaana waxaan leenahay hawsha halka aad ka haysa ka sii hay ilaa waliga